wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadan doono qaabka ay doorashada guud ee dalka ka dhacday maanta ay uga dhacday deegaanka dawladda Soomaalida. waxa maanta markii afraad dalkani Itoobiya si rasmi ah uga socotay doorashada guud ee dalka laga dooranayo xubnaha golaha wakiilada shacabka. doorashadan oo saaka subaxnimadii 6 ama 12 aroornimo bilaabantay ayaa ilaa 12 maqribnimo socotay. deegaanka dawladda Soomaalida oo ay dadweynuhu ay si aad u sareysa uga qayb qaateen cod dhiibashadan ayaa waxa maanta ay si toos ah codkooda ugu dhiibanayeen goobaha codka lagu dhiibto ee loo diyaariyay iyada oo ay maanta rag iyo dumarba ay si toos ah codkooda si madax bannaan ay ugu dhiibanayeen. deegaanka dawladda Soomaalida ayaa waxa ay doorashadani saaka ay ka bilaabantay waqtigii aroornimo ee hore iyada oo horeyna halka loogu diyaariyay goobihii dadku ay codkooda ku dhiiban lahaayeen. waxaana intaan codka la dhiibanin ka hor halkaasi la xaqiijiyay inay joogaan wakiilada shacabku ay doorteen ee markaasi indhaynaya qaabka ay doorashadu ama cod dhiibashadu u socoto iyo wakiilada xisbiyada u tartamaya doorashooyinka iyada oo halkaasina ay kormeerayeen goobjoogayaal ka socday dalka gudihiisa iyo dibadda. doorashada guud ee ka dhacday dalkan Itoobiya gaar ahaan deegaanka dawladda Soomaalida ayaa waxa maanta kormeeraya oo soo indhaynaya isla markaasina halkaasi waraysiyo kula yeeshay dadkii codkooda dhiibanayay wariyaal ka kala socday telefishinka iyo raadiyaha Itoobiya iyo xafiiska warfaafinta ee deegaanka dawladda Soomaalida. haddaba balan ku horeyno qaabka ay dadku codkooda uga dhiibteen magaalada Jigjiga iyada oo saaka subaxnimadii intaan dadku codkooda dhiiban ka hor la xaqiijiyay in markaasi meelihii codka lagu ridaayay ay faaruq yihiin ama ay madhan yihiin oo la tusayay dadka goobjoogayaasha ee markaasi indhaynaya doorashooyinka ayaa waxa ay ahayd mid halkaasi la xaqiijiyay. dabadeedna waxaa halkaasi wariye Cabdilaahi Cali Yuusuf uu la kulmay nin ka socday midowga Afrika oo goobjoogayaal ama kormeeraha ahaa isagoo halkaasina indhihiisa ku arkayay qaabka ay arrintu u bilaabmaysay ama cod dhiibashadu u bilaabmaysay. mar arrimahaasi wax ka weydiiyana waxa uu yidhi sida tan. magacaygu waxaa la yidhahdaa xildhibaan Ibrahim Xabeeb Nuur. waxaan ka socdaa Pan African Parliament African Union. waxaan halka u joognaa oon ka midnahay goobjoogayaasha caalamiga ah ee African Union gobolkan Soomaalida ayaan mataqaanaa inaan kormeernaan aan u nimid. haddana waxaan goobjoog ka nahay furitaankii ugu horreeyey doorashada la gelayay albaabka iyo sanaatiiqdii ugu horreysay inaan indhaheenna ku aragno ayaan u soo kalahnay oo maaragtay marka la furayo yacni aan waxaan indhaheenna ku aragno oo aan kormeerno oo shaqadii waajibaadkii yacni aan u nimid aan ka qabsanno sidaa weeye walaal. sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada Jigjiga oo codkooda dhiibanayay oo aad ugu faraxsanaa in ay maanta ay fursadani qaaliga ee markii afraad doorashadani ka dhacaysa deegaanka iyo guudaanba dalka ay si madax bannaan codkooda u dhiibteen ayaa waxa halkaasi uu qaar ka tirsan dadkaasi uu wax ka weydiiyay balse u arkaan guudaanba doorashadani iyo sida ay maanta codkooda u dhiibteen. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Maryan Cilmi. haatan doorashadii codkii doorashada ayaad ku riday waqtigeed timid halkan waqtiga 6 subaxnimo ayaan nimid salka salaadii subax ka baxnay ayaan nimid ilaa kuyubaan ku jirnay imakaan markaa ku ridnay codkaagii waad ku riday dareenkaagu waa sidee aad buu fiican yahay waan ku faraxsanay si fiican bayna igu dhacday saasaan ugu faraxsanaa. doorashadan waa tii afraad ee qaran ee haatan laga qabanqaabiyay dalkan Itoobiya iyo deegaanka Soomaalidaba. guud ahaan markaad eegto doorashadan faa'iidada ay u leedahay shacabka Soomaalida ku dhaqan deegaanka waa maxay? aad bay ugu wanaagsan tahay oo nabadgelyada wax loo dhigaa ma jirto markaasi saa darteed baan goorobla nabadgelyo anagu shicbatan aan u jecel lahay marka nabadgelyada u baan anaguna raali ka nahay. horumar faa'iido ay u leedahay doorashadu. horumar ay aad u leedahay. maxamed Carte waxaad degan tahay xaafadda 6 ee xarunta deegaanka ee Jigjiga. cod bixintii haatan waa dhammaystirtay oo codkaagii waad dhiibatay. bal iga waran maanta guud ahaan dareenkaagu waa sidee? wallaahi maanta dareenkayga horta aad uu fiican yahay waayo cadceed wanaagsan baa noo soo baxday sababtoo ah maanta maadaama ay tahay doorashadii afraad horta aad baan uga faraxsanahay. marka sidaa darteed waxa weeyaan dee si wanaagsan doorashada u socotaa nabadgelyana ku jirto
marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka wakiilahay bulshada Sorosidhisti soonka afraad ayaan ka wakiilnaa marka waxaad eegaysaa doorashadu qaabka u dhacaysa aad eegaysaan wakiilka timxaa shacab ha doorashadu soo socotaan eegina ruuxantii ilaa imika si waxay u socotaa habsamiya oo kala dambeyn leh oo si fiican ayay u socotay ilaa hadda hadday noqoto xagga safka hadday noqoto shaqaalaha footeynaya iyo kuwa laga footeynayaba si fiican bay ilaa hadda u socota bal ka waran sanduuqa iyo meeshuu yaallo dadku siday ugu ridayaan ma yahay mataqaanaa qaab lagu kalsoonaan karo oo nadiifa ha ruuxantii wax kasta way iska cadiya sanduuqa waa halkaas ka yaalla cid kastoo timaadaa way arki kartaa wax kasta waa wax biyuura oo democratic vote aynu odhan karnaa wax kasta waa democratic si cad loo arki karaa maxaad halkan u fadhidaa waxaan u fadhiyaa bulshada shaqabalaha Sorosidhisti aan ka wakiilahaydo xagga doorashada ilaalinteeda ayaan u fadhiyaa ilaa imika intii aad fadhiday doorashadan dadku wax dooranayeen sanduuqa ku ridayeen sidee u dhacayso sidee u aragtaa adigu wallaahi runtii si wanaagsan bay u dhacaysaa qof walba sayarka wuxuu dooranayaa sanduuqa la arki karaa wax qarsoon ma jiro qof walba mabtiisa wuxuu dooranayaa marka maxaad ugu baaqi lahayd bulshada qaabalihiina ama bulshada deegaanka gudaha bulshada waxaan ugu baaqi lahaa ha ka soo qayb galaan doorashada qof walba iskhiyaarkii wuxuu dooran lahaa magacaygu waxaa la yidhaha xuseen maxamuud gudaal baa la yidhaha xuseen maxamuud gudaal haatan waxaanu ku sugannahay xaafadda eber 6 codkiina waa dhibatay bal iga waran sida codka dhibashadu ay ahayd xaaladdu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay codkana si fiican buu u socdaa hadda ana codkaygana waan dhiibtay si xalaalaan u dhiibtay codkayga marka in muddo ayaa loo diyaar garoobayay doorashada qaranka ee afraad ee haatan laga qabanqaabiyey dalkan iyo deegaanka Soomaalida marka adoo muddo istiiwaan galiyay oo haatan codkaaga dhiibtay dareenkaagu suu yahay maanta dareenkaygu iyo shucuurtaydu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay marka aad baan ugu faraxsanahay sida dimuqraadinimada ay u socoto codka ay waxa la yiraahdaa Maxamed Sheekh Umar Ahmed Yaasin Balada doorashada see tahay doorashada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si fiican bay u dhacaysaa doorashadan iyo kuwii hore baliga waran aad buu kala duwan yahay tan waa mid xalaal ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay doorashada si fiican bay u dhacday doorashadii afraad ayaa haatan maanta si rasmi ah loogu jiraa oo codkii shacabku ay dhiibanayaan imsa doorasho ayaa ka qayb gashay doorashada ilaa tii hore waan ogeyn waxa weeyaan tan waa tii afraad adu tana aad ugu fiican doorashadani aad buu fiican tahay aad iyo aad buu fiican tahay maxay ku fiican tahay waxa ugu fiican tahay waxa waxayeen codkayga xalaala si xoran u dhiiban codkaygii waka bal markana aanu gudubno dhinaca magaalada godayna maanta degmooyinka iyo tuulooyinka iyo weliba xaafadaha waxa ka socday doorashada codkooda ay dadweynuhu ku dhiibanayeen sidii markaasi ay u dooran lahayn xisbiyada iyo dadka musharaxiinta isku soo sharaxay doorashada haddaba doorashada magaalada goday ka dhacday ayaa ahayd mid ay haweenka iyo ragguba ay si safsaf ay ugu soo galeen si ay codkooda ay u dhiibtaan iyagoo aad ugu faraxsan ka qayb qaadashada doorashadani haddaba waxaa halkaasi iyaguna wax laga weydiiyey bal siday u arkaan qaar ka tirsan xildhibaanna iyagu u tartamaya doorashada oo sheegay inay doorashadani ay u socotay markaasi si madax bannaan iyo dimuqraadiyadda waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xildhibaan ka mid ah kuwa u tartamaya doorashada sida tan suldaan maxamed xasan xubnaha baarlamaanka kelka xisbiga soo sharaxay baan ka mid ah waayahay waxaad nooga sharaxdaa bal doorashada qaabka u socoto iyo dadka siday u yimaadeen iyo sidaad u aragtoba doorashada runtii si fiican buu dadku soo baxay saaka 12 artaan inay bilaabatay si dimuqraadiyad ah hanaankii anshaxay doorashada